السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha meel kasta joogtaan waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan anagoon fiicana alxamdulilah maanta waxaan noo wadaa muuqaal cusub oo ah cake insha allah keegan waa keega maasha allah dadka ku kacsan yihiin caano ayaa laga sameeyaa intiisa badan aad ayuu u fudud yahay waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago insha allah xagan sida arkaysaan waxaan ku haysanaa waa alaabta dhan u baahannahay video gudihiisana insha allah waan idinku kala sheegi doonaa xabad xabad caanihii hore idin tusay waxay ahaan condensed milk evaporated milk iyo baking powder iyo double cream kulli waxba ka walwalin insha allah videoga daabo xabad xabadaan idinku sheegi doonaa insha allah so marka u horeyso waxaan soo qaadanay laba weel labada weel waxaan ugu baahannahay ukuntii insha allah ukuntan labada qeyb waa kala saareynaa qaybta cad iyo qaybta yelowga laba weel aad kusoo kala shubanaysaa biidnillah so labadoodana sida loo isticmaalayo waa idin tusayaa so qaybtii u horeysa hadda soo qaadanay sida arkaysaan waa qaybta yelowga ah ukunta qaybteeda yelowga ah waxaa ku daraysaa laba qaado oo sokor ah ama qaado insha allah intaasaa ku walaaqaysaa mashiin uma baahnid qaybtan biidnillah waxaa isticmaali kartaa gacanta qaybtaasi markaa isku mix garaysid koobkii caanaha ahaa haaf ku darsaday sida arkaysaan koob caanaha haafkiisan ku daray iyo in yaroo cusbo ah qaybtii dambe caanahana gadaalaan kaga daray hadda insha allah kadib waxaa soo qaadaysaa koobkii burka ahaa ayaa ku daraysaa oo isku mix garaynaysaa in yar ugu dar insha allah xaggani ana qalad ayaan sameeyey waxaa la rabay burka inaan isticmaalo midka lagu shaqshaqo oo lagu kala saaro biidnillah isku day inaad sidaasi sameysid laanaha haddaa sidan ani aan yeelay ay yeeshid waqtiguu kaa qaadanaya intaa mataqaanaa baruurtadaasi ka jajabinaysid marka insha allah aniga cashiran ka bartay waan iska halmaamay inaan burka shaqshaqo insha allah sidaas sameeyay biidnillah so burkii markaa intaasi ku dhameeyay sidaas uu kusoo baxay qaybtan marka waxaan u dhiganaynaa dhinac hadda waxaan soo qaadanaynaa qaybtii ukunta cadeed insha allah so qaybtii ukunta cadeed waxaan ku daray aday koob nuskiisa oo sokor ah insha allah ama haafkiisa aan 4 xabo ukun isticmaalay 4 xabo ukun waxaan u isticmaalay koob bur ah insha allah haddaa ka badan isticmaalaysid ukunta wax ku dar haddaa ka yar isticmaalaysidna ka yaree biidnillah so xaggani qaybtan oo ukunta cad waxaan u baahannahay mashiinta gacanta ayaan u baahannahay leanna gacanta ku sameynaa haddaad tiraahdid waqti badan uu kaa qaadanaya insha allah so sokorti iyo ukunta qaybteedii cadeed ama taqaanaa isku soo garaacayna insha allah mashiinta isticmaaleyna ilaa iyo inooga soo baxda mataqaanaa soft biidnillah kabacdina waan isku dari doonaa labada qayb biidnillah sidaas uu kusoo baxay sida arkaysaan ukuntii hadda waxaan sameynayaa qaybtii hore burkii iyo ukuntan isku soo qasnay iyo qaybtan la isku dari doonaa biidnillah so qaada isticmaalaysaa xagan mashiin ma ku taabanaysid mashiin looma baahno mana la rabo inaa xoog iskugu walaaqdo mataqaan xoog iskugu qasno si yaroo degan ayaa isku dhexgelinaysaa leanna ukunta qaybteeda cad mataqaana creamka noo noqotay ma rabno inaan haddaa walaaqno ama mashiinta isticmaashid waxay noqonaysaa biyo marka ma rabno inay biyo noqoto so yara isku dhexgelinaysaa qaado ayaa isticmaalaysaa insha allah so xagan waxaan idinka halmaamay markaan burka ku darayay waxaan ku daray baking powder insha allah qaado buuxdo oo baking powder aan ku daray sida ula socda insha allah waan halmaamay inaan idiin sheego markaan burka ku darayay kadib saasay iskugu soo baxeen traygan soo qaadanaynaa waan ku shubaynaa insha allah marka waxaan sameynaa ovenkan gelinayaa waxaan ku daynayaa 25 daqiiqo ilaa 30 mirir biidnillah intaasaan ku dayn doonaa kabacdi markuu kasoo baxana waxyaalaha kale sameynaa idiin tusaya insha allah xagan waxaan isticmaalayaa qorigaasi insha allah waxaan kaga saarayaa the air waxa ku jira mataqaanaa hawada ku jirtaan kaga saaraya sidaasaan ku dhadhehaysaa
kabacdi ovenkan geliyay xaggan waxaan ku haystaa waa caano waa caanahaasi evaporated milk ku qoran tahay iyo condensed milkiga kan waxaan isticmaalay xabad iyo xabad haafiisa iyo koob caano ah koobkii caanaha maana wada isticmaalin haaf ayaan isticmaalay insha allah soo caanayaashan gasaca ku qoran oo evaporated milkiga meel kasta ka heli kartaa supermarketyada corner shopyada insha allah condensed milkna sidaas oo kaleeto marka saa ula socdo labadaasi caano fadhiyo iyo waxaan ku daray iyo koob caano ah markaan isku dardarayay kaamiradu way iga dansaneed insha allah soo keegi waa sida arkaysaan waan kasoo saaray waa inoo diyaar hadda waxaan sameynayaa dhinaca u dhigaysaa marka u horeyso waa inuu kuu qabooba keeg oo kulul caanahaasi laguma shubaayo insha allah markuu qaboobay dhinacyadeen ka jaray kabacdi intaan ka saaraa traygiisi ku celiyay kadib caanaha ku shubeysaa waxaa la rabaa caanahanayta inuu cabo ama uu dhex galo biidnillaah kadib meelaa la dhigaysaa xoogaa aday saacad iyo waxa ma la dhigaysaa insha allah xaggan qaybtii u dambeysay waayo waxaan ku haystaa waa double creamkii waxaan ku daray sonkoran ku daray wax yar oo sokor ah 2 qaado 3 qaado meelahaasaan ku daray liannaha sokorta badan aan isticmaalnay aad ayay u yaryareed liannaha caanayaashan isticmaalo oo gasaca ku jiro waa sokora ku jirto mida sokor qasan ah marka sidaas darteed aan u isticmaalnay sokor badan aan u isticmaalin insha allah kadib creamkan dusha ka mariyay caanihiina wuu cabay sida arkaysaan in yar xagga dambe u fadhiso waana looga tiragalay inuu caanaha xagga dambe u fadhiyo xagga sare waxaan kaga daadiyay arkayseen waxaa waaye pistachio hadaad pistachio haysanin qasab maahan chocolate xagga sare kaga xoqi kartaa ama waxaa ku daadi kartaa loos aad tuntay insha allah waa wax sharaxaad ahaan ah wallahi insha allah keegan lagama sheekeyn karo aad iyo aad u macaanaa intiisa badan sida arkaysaan caano fadhiyay iyo caanihii caadiga ahaa iyo caano kaleeta laga sameeyay waxaan rajeynayaa inaad isku dayi doontiin insha allah waxaan idin tusayaa hadda anigoo soo jartay xilli habeenay ahayd xaggan marka sidaas uu kasoo baxay sida arkaysaan maasha allah walaa aad iyo aad u macaana lagama sheekeyn karo marka waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan videogan haddaa igu cusub tahay markii kugu horeysaa tahay channelkayga soo booqato waxaan ku leeyahay soo dhawow haddaa markasta i daawatidna aad ayaa u mahadsan tahay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa insha allah ilaahay inaga yeela kuwii wax kala faa'iidaystaa biidnillaah marka intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago videogan waxaan rajeynayaa inaa waxun ka faa'iidid marka hadduu ku cajabiyo biidnillaah waxaa isku daydaa inaad subscribe ii saartid haddaada saarina insha allah ilaahay kaa ajar siiyo insha allah kheyr badan ayaa idinkaga tegi doonaa videogiisa xigintaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa amaanada ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu